بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دبادة قodobada wararkeena ugu doorqana janalka Daily TV waxaana kamid noqonaya madaxweyne farmaajo oo si weyn loogu soo dhabeeyay magaalada Dhuusamareeb saldhigii berbera wuxuu raacay isbedelka imaaraadka dhinaca istiraatiijiyadda Soomaaliya oo gudbisay warbixin ku aadan fulinta axdiga caalamiga ee xuquuqda carruurta ciidanka ammaanka Puntland oo la wareegay xarunta warbaahinta daljir ee Boosaaso ra'iisul wasaare Kheyre oo la kulmay wakiilada beesha caalamka bangiga adduunka oo maamulka gobolka Banaadir ka caawinaya dhismaha wadooyinka Muqdisho dalada Soomaa oo cambaareysay falkii ciidamada Puntland kula kaceen idaacadda daljir duqa Muqdisho oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirkii Turkiga iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo ka qayb galay shirka dhacaya Garowe maalintii labaad daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu door korona inta aan gudagalin iyagoo faahfaahsan waxaan idin xasuusinaynaa haddii aad nagu cusub tahay falan nagu soo biir oo janalka subscribe saar sidoo kalena gambalaalka furo si aad uga mid noqoto daawadayaasha ugu horeeya wararkeena u soo dhaca haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa si weyn loogu soo dhabeeyay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug wafdi oo hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa garoonka diyaaradaha ku soo dhabeeyay madaxweyne Farmaajo oo uu safarka ku weelinayay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf waxaa sidoo kale wafdiga madaxweynaha soo dhabeeyay wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiin iyo dadweyne kale oo aad u fara badan madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu soo xiro shirka dib u heshiisiinta beelaha dega maamulka Galmudug oo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud shirkan oo gacan ka geystay sidii uu u qabsoomi lahaa isla markaana uga furmi lahaa magaalada Dhuusamareeb ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa la filayaa in madaxweynuhu soo afmeero inkastoo ay jiraan beelaha qaar oo shirka ka gadoosan isla markaana warar soo saaray waxaana ka mid ah beesha Cadaado degta iyadoona sheegtay in madaxweynaha uu balamo horay ula galay balamahaasna aysan weli waxba ka fulin sidaas awgeedna aysan innaba raali ka noqon doonin waxyaabaha ka soo baxa shirka magaalada Dhuusamareeb ayaa inta badan waxa ka qayb galay beelaha dega Galmudug walow la filayo in madaxweynuhu uu soo xiro lamana saadaalin karo sida loo xalin doono beeshani Cadaado ee soo caawatay saldhigii berbera wuxuu raacay isbedelka imaaraadka ee dhinaca istiraatiijiyadda xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay hadalkii madaxweynaha Somaliland ee dhawaan uu ku shaaciyay in madaarkii berbera uu noqon doono mid ay adeegsadaan dadka shicibka wadani ayaa sheegay in isbedel weyn uu ku yimid istiraatiijiyadii imaaraadka midaasi uu ku macneeyay in dantii uu berbera ka lahaa ay wax weyn iska bedeleen sidaasina uu ku yimid hadalka madaxweyne Biixi xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Qadar Xuseen Cabdi oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda kulmiye uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi looga baahan yahay in ay dadweynaha reer Somaliland si cad ugu sharaxdo waxyaabihii iska bedelay heshiiskii ay horay ula galeen dowladda Imaaraadka Carabta xogayaha ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay in madaxweynaha Somaliland looga fadhiyo in uu banaanka keeno heshiiskaasi oo uu sheego in madmadow badan uu horay ugu jiray isla markaana loo baahan yahay in madmadowgaasi laga saaro haddii wax ka bedel lagu sameeyay heshiis baynu imaaraadka ku wada jirnay heshiisku sidoo doonaba ha noqdee ama ha ku bilowdee wuxuu ahaa mid madaarka berbera uu saldhig military u noqdo dowladda imaaraadka marka arintaasi maxaa iska bedelay ma dhankeena ayay wax iska bedeleen mise dhanka dowladda Imaaraadka Carabta sidee wax u jiraan su'aalo fara badan bay u baahan tahay oo ay tahay in dowladda iyo madaxweynuhu ka jawaabaan ayuu yiri sida muuqato isbedel xagga istiraatiijiyadda oo siyaasiyan ah oo Imaaraadka ayaa jira wayna cadahay siyaasadii arrimaha dibadda ee Imaaraadkuna waxay wada dib u qaaween midaasi oo saameyn ku yeelanaysa danihii ay horay u lahaayeen ama ay horay uga lahaayeen deegaanka Somaliland ayuu yiri wuxuuna intaasi ku sii daray isbedelada istiraatiijiyadda Imaaraadka
ayuunbaa u muuqda in uu arrintani qayb ka yahay oo saameyn ku leeyahay. Annagu haddii aan iskala daalaadhacayno oo aynu marayno halka ay marto dabaysha danaha dalalka kale, waxay ku fiicneed ugu yaraan in dadka ay u sharxaan sida ay wax u dhaceen, midaasi oo ah waajib ay ku leeyihiin madaxweynaha, ayuu yidhi. Waa in dib loo eegaa heshiiska oo dadka loo sharaxo loona sheego oo ayna sanduuq madow ku jirin sida uu markii horeba uu sanduuq madow ugu jiray oo iminkaba aan lagaga bixin sanduuqii madowga ee heshiiska uu ku jiray. Waa in dadka loo sheegaa haddii uu wax iska beddelay heshiiskaasi, ayuu yidhi xisbiga mucaaradka ee Somalilan ee Wadani lagu magacaabo. Soomaaliya ayaa gudbisay warbixin ku aadan fulinta axdiga caalamiga ah ee xuquuqda carruurta. Dowladda Soomaaliya ayaa qaramada midoobay u soo bandhigtay warbixinta bilowga ah ee ku aadan fulinta axdiga caalamiga ah ee xuquuqda carruurta oo ay Soomaaliya ahayd wadankii 196aad ee saxiixa axdigan sanadkii 2015. Wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha dowladda Soomaaliya Marwo Deeqa Yaasiin ayaa ku dhawaaqday soo saarista warbixinta bilowga ah ee Soomaaliya ee ku aadan fulinta axdiga caalamiga ah ee xuquuqda carruurta ee loo soo gaabiyo CRC. Bangiga Adduunka ayaa maamulka gobolka Banaadir ka caawinaya dhismaha wadooyinka magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa shir uu gudoominayay kulan u dhaxeeyay maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda Bangiga Adduunka, kaas oo looga hadlayay horumarinta mashaariicda lagu dhisayo wadooyinka caasimadda iyo xarumaha danta guud. Cumar Finish ayaa Bangiga Adduunka uga mahadceliyay doorka ay ka qaadatay in dib u dhiska magaalada Muqdisho oo uu sheegay inay ka soo kabanayso marxaladihii burburka ee dalka soo maray. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in uu kala hadlay madaxda Bangiga Adduunka in maamulkiisu ay ka caawiyaan dib u dhiska wadooyinka si loo soo celiyo bilicdii caasimadda. Wakiilada Bangiga Adduunka u fadhiya Soomaaliya ayaa dhankooda ballan qaaday in ay dowladda hoose ee xamar ka caawin doonaan mashaariic kasta oo lagu horumarinayo magaalada Muqdisho. Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa isugu jira kuwa xiran iyo wadooyinka qaar oo burbursan, dib u dayactirna aan helin. Waxa uuna gudoomiyuhu sheegay in la furayo wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho si loo fududeeyo isu socodka gaadiidka Muqdisho. Ciidanka ammaanka maamulka Puntland ayaa la wareegay xarunta warbaahinta Daljir ee Boosaaso. Ciidamo ka tirsan booliiska maamulka Puntland ayaa la wareegay xarunta Radio Daljir oo ka howlgasha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Bari Cabdirashiid Aamusane iyo ciidamo uu watay oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka ayaa gudaha u galay xarunta warbaahinta Daljir ee Boosaaso, waxa ayna amreen in la damiyo idaacadda. Wariyaasha ka howlgala Radio Daljir ayaa sheegay in ay soo bandhigeen tacadiyo jirdil ah, xabsi, maxaabiis aan wax xukun ah lagu ridin. Arrinkaasi oo taliyaha booliiska Puntland General Muxudiin uu ka carooday, isagoona u sheegay in uu tallaabo ka qaadi doono warbaahinta Daljir maadaama ay shacabka u soo bandhigtay tacadiyada lagu eedeeyay inuu geystay sida ay sheegeen. Taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Banaadir Cabdirashiid Aamusane ayay ku eedeeyeen in uusan wadan wax warqad ah oo maxkamadeed marka laga reebo gaadiidka dagaalka oo ay sheegeen in lagu qalqalgeliyay shaqaalaha xarunta Daljir ee Boosaaso. Maamulka Radio Daljir ayaa sheegay in xarigan uu yahay kii afraad ee ciidamada ay ku weeraraan Radio Daljir xarumihiisa Garowe iyo Boosaaso labadii maalmood ee la soo dhaafay. Saraakiisha ammaanka Boosaaso weli kama hadlin xiritaanka warbaahinta Daljir ee magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa la kulmay wakiilada beesha caalamka. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo maanta kulan la qaatay wakiilada saaxiibada caawiya Soomaaliya ayaa xog ka siiyay socdaalkiisii Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo dhanka loo jiheeyay horumarka dalka ee dowladda Soomaaliya ay doonayso in lagala shaqeeyo. Ra'iisul Wasaaraha oo beesha caalamka uga mahadceliyay taageerada joogtada ah ee ay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed siiyaan
ayaa wakiilada warbixin ka siiyey guulaha ay dowladdu ka gaartay dib u haweynta amniga, siyaasadda, horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa caddeeyey in la joogo xilligii Soomaaliya lagu caawin lahaa fursadaha maalgashi, horumarinta dhaqaalaha iyo hirgelinta kaabayaasha dhaqaalaha si loo yareeyo baahiyaha bini'aadamnimo ee waqtiga fog la daashaday Soomaaliya. Waxa uu intaasi ku daray ra'iisul wasaaruhu inay muhiim tahay in bulshada fursad loo siiyo in ay awood u yeeshaan wax soo saarka dhaqaale iyo dhalinyaradana shaqo abuur loo sameeyo iyo maalgelinta la gaarsiiyo deegaanada ay ku nool yihiin bulshooyinka qaba baahiyaha ugu daran. Ra'iisul wasaaraha ayaa xusay in baahiyaha caafimaad, waxbarasho iyo biyo yaraan ay ka jiraan deegaanada Huurshe iyo Xeraale ee dhawaan lagu guuleystay in la damiyo colaadii sanadada badan soo jiitamaysay. Baahiyaha kale ee bulsho ee ka jiraan deegaanada uu socdaalka ku soo maray ee Koonfur Galbeed ayaa lagama maarmaan tahay in hay-adaha caalamiga ah ay si shakhsi ah uga jawaabaan baahiyahaasi bulsho, ayuu yiri. Waxa uu u sheegay ra'iisul wasaaruhu in magaalada Xudur uu ku soo arkay bulsho sanado badan go'doonsanaa, hase yeeshee la timid isku tiirsanaan ay ku badbaadeen, ammaankoodana ku sugteen, isaga oo intaa raaciyey in ciidanka ku sugan Xudur ay u diyaarsan yihiin in ay xoreeyaan Bokool oo dhan haddii ay helaan qalab ay u baahan yihiin. Duqa magaalada Muqdisho ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Turkiga. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay safiirkiisa dalka Turkiga u fadhiyo Soomaaliya Mehmed Yilmaz. Kulanka ayaa labada dhinac waxa ay uga wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha ah iyo sii wadida taageerada iyo garab istaagga dowladda hoose ee Xamar uu Turkiga siiyo. Duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish ayaa tan iyo markii la magacaabay waxa uu waday kulamo kala duwan iyada oo maanta uu la kulmay wakiilo ka socday Bangiga Adduunka. Dalada Soma ayaa cambaareysay falkii ciidamada Puntland kula kaceen idaacadda Daljir. Dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Soma loo soo gaabiyo waxa ay ka xun tahay oo ay aad u cambaareynaysaa tallaabada ciidamada booliiska Puntland ay ku damiyeen idaacadda Daljir xarunteeda Boosaaso. Gabadfalkaas ay ku kaceen ciidamada booliiska Puntland waa mid ka hor imaanaya dastuurka dalka, midka dowlad goboleedka iyo xeerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo xuriyadda hadalka, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Soma. Falka maanta lagu kacay idaacadda Daljir waa wax laga xumaado in qalqal la geliyo si toos ahna loogu xadgudbo xarun warbaahineed iyo howlwadeenno oo ku guda jira shaqo maalmeedkooda caadiga ah oo ay bulshada u hayeen. Waxaa wanaagsan in la ilaaliyo sharciga iyo nidaam u yaala dalka oo la ilaaliyo madax banaanida oo aan xarumaha idaacadaha xarig iyo hanjabaad loo geysan, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay hoggaanka dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Soma. Dowlad goboleedka Puntland waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ah sharciga u horkeenaan ciidamadii maanta qalqalgelinta iyo xariga ku sameeyay xarunta Daljir ee magaalada Boosaaso. Warkan ayaa waxa uu ka soo baxay gudoomiyaha dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Soma Maxamed Cismaan Makaraan. Ugu dambeyntiina madaxweyne Dani ayaa maalintii labaad ka qayb galay shirka maalgashiga ee ka socda Garowe. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa maalintii labaad ka qayb galay shirka maalgashiga Puntland, waxaana madaxweynuhu ka qayb qaatay doodaha fikrada shirka la isku weedaarsanayay iyo qiimeynta bangiga maalgashadayaashu shirka ku soo bandhigeen. Ajandaha maanta shirka looga hadlayay waxaa ka mid ahaa iyo fursadaha maalgashi ee Puntland ka jira, bangiga kheyraadka xoolaha, kheyraadka beeraha iyo deegaanka, shuruucda dhaqaalaha iyo adeegyada bangiyada, hirgelinta hal abuurka dhalinyarada, shaqo abuurka dhalinyarada, horumarinta xirfadaha, shuruucda dhaqaalaha, tiknoolajiyadda iyo hal abuurada kale. Sidoo kale madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa maanta waxa uu la kulmay ganacsatada Soomaaliyeed ee bariga iyo bartamaha Afrika, kuwaas oo ka soo qayb galay shirka maalgashiga Puntland oo maalintii labaad ka socda caasimadda Garowe. daawadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya qodobadii wararka ee aad kala socoteen channelkeena Daily TV. intaan warkan warkiciga ku kulmi doono, nabadgelyo.